الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. waxaan ku jirnaa kitaabkii duruusu luqa alcarabiya ligayri naadiqiina biha juskiisa koowaad. waxaan joognaa addarsu saabic cashirka toddobaad. man haadihi tani waa tuma, haadihi midda tani aaminatu waa aamino, waman tilka taasina waa tuma waa qoftee midaas, tilka taasi faadimatu waa faadimo, haadihi midda tani dabiibatun waa dhaqtarad, wa tilka taasina mumaridatun waa kalkaaliso. haadihi midda tani min alhind wadanka hindiya ayay kasoo jeedaa ayay ka timid, wa tilka taasina min alyaabaan wadanka jabaan ayay ka timid oo ay kasoo jeedaa. haadihi midda tani dawiilatun way dheer tahay, wa tilka taasina qasiiratun way gaaban tahay. man haadaa kani waa kuma, haadaa kani xaamidun waa xaamid, waman daalika kaasina waa kuma, daalika kaasi caliyun waa cali. atilka taasi dajaajatun digaagad miyaa, laa maya, tilka taasi badatun waa booloboolo. maa tilka taasi waa maxay, tilka taasi baydatun waa ukun. haadihi midda tani sayaaratu lmudarisi waa baabuurkii macalinka, wa tilka taasina sayaaratu lmudiiri waa baabuurkii maamulaha. asaacatu cabaasin haadihi tani saacadii cabaas miyaa, laa maya, haadihi midda tani saacatu xaamidin waa saacadii xaamid, tilka taasi saacatu cabaasin waa cabaas saacadiisa. daalika kaasi diikun waa diiq, wa tilka taasina dajaajatun waa digaagad ama dooro waxaa dhahdaba. tamaariin layliyo. layliga koowaad iqra aqri waktub qor. nambarka koowaad haadihi midda tani madrasatun waa madraso, wa tilka taasina jaamicatun waa jaamacad. nambarka labaad daalika kaasi ximaarun waa dameer, wa tilka taasina baqaratun waa sac. guud ahaan marka albaqar waa lo-da laisku dhahaa, markii oo baqaratun la dhaho oo ta'gaab la raacsiiyana waxaa laga wadaa saca oo midda dhadiga ah. nambarka saddexaad adaalika masjidun kaasi masjid miyaa, laa maya, tilka taasi madrasatun waa madraso ama dugsi. nambarka afaraad haadaa kani jamalun waa rati, wa tilka taasina naaqatun waa hal hasha geela. nambarka shanaad haadihi midda tani mudarisatun waa macalimad, wa tilka taasina daalibatun waa ardayad. nambarka lixaad haadaa kani kalbun waa ay, wadaalika kaasina qidun waa mukulaal ama yaanyuur. nambarka toddobaad haadaa kani beytulmu'adini waa mu'adinka gurigiisa, wa tilka taasina xadiiqatu taajiri waa ganacsadaha beertiisa. ashir tilmaam ila alkalimaad ereyada al-aatiya ee soo socda bismi ishaaratin magac tilmaameed oo lilbaciidi waxa fog loogu talagalay oo waxa kaa fog. daalika kaasi iyo tilka taasi. daalika hore ayaan usoo sheegnay, waxaan dhahnay waxaa loo isticmaalaa hal shay ama hal qof oo lab ah oo kaa fog. tilka ayadana waxaa loo isticmaalaa hal shay ama hal qof oo dhadig ah oo kaa fog. haddii aan fiirino marka tamaariinta layliyada inta yaalaan, wixii lab ah magacyada labka ah waxaan u isticmaalaynaa daalika, magacyada oo dhadiga ahna waxaan u isticmaalaynaa tilka. nambarka koowaad haddii aan fiirino ummun hooyo, ummun waa magac dhadig ah oo mu'anath ah, marka waxaan leenahay tilka, tilka ummun taasi waa hooyo. haye nambarka labaad abun waa aabe, abun waa magac mudakar oo lab ah, waxaa leedahay marka daalika kaasi abun waa aabe. haye nambarka saddexaad qalamun qalim waa magac mudakar ah, waxaa leedahay daalika qalamun kaasi waa qalim. nambarka afaraad milcaqatun qaando waa magac oo dhadig ah, waxaa leedahay tilka milcaqatun taasi waa qaando. nambarka shanaad caynun il waa magac oo mu'anatha yacni dhadig ah, waxaa leedahay tilka caynun taasi waa il. nambarka lixaad xajarun dhagax waa magac mudakara, waxaa leedahay daalika xajarun kaasi waa dhagax.
nambarka 7 qamiisun waa magac mudakara waxaa leedahay daalika qamiisun kaasi waa qamiis. nambarka 8 qidrun waa digsi waa magacaas waa mu'anath waaye carabta cayntiisa mu'anath ahaan dhadig ahaan ayuu u yahay annaga laakiin lab ahaan ayuu noo yahay digsiga marka tooda ayaa raaceynaa maadaama luqadda aan baraynayna af carabi tahay waxaa leenahay tilka qidrun taasi waa qidri yacni digsi waaye kaa. nambarka 9 naafidatun daaqad ama dariishad waa magac mu'anatha waxaa leedahay tilka naafidatun taasi waa dariishad. nambarka 10 baqaratun waa sac waxaa leenahay marka tilka baqaratun waa magac mu'anatha. nambarka 11 maktabun miis xafiiseed waxaa leedahay daalika maktabun kaasi waa miis xafiiseed yacni waa magac mudakara. nambarka 12 naaqatun hal waxaa leedahay tilka naaqatun taasi waa hal geela waa magac marka mu'anatha naaqa. nambarka 13 muhandisun injineer waa magac mudakara waxaa leedahay daalika muhandisun kaasi waa injineer. nambarka 14 waxaa leedahay mu'adinun mu'adin waa magac mudakara waxaa leedahay daalika mu'adinun kaasi waa mu'adin. nambarka 15 mumaridatun kalkaaliso waa magac mu'anatha waxaa leenahay tilka mumaridatun taasi waa kalkaaliso. nambarka 16 sariirun sariir marka caynteeda carabtu waxay u tahay lab ahaan ayay u isticmaalaan cayntooda laakiin annaga dhadig ahaan aan u isticmaalnaa marka midda carabta hadda raacayna waxaa leedahay daalika sariirun kaasi waa sariir. nambarka 17 xadiiqatun waa beer waxaa leedahay tilka xadiiqatun taasi waa beer. inta badan magacyada dhadiga ah waxaa raacsan ku fahmi kartaa xarafka ugu dambeeya wuxuu noqdaa taagaab ta'daasay noqotaa marka saasaa ku fahmaysaa. kuwa qaarna macnaha ay waxay ka yihiin dhadig ahaan ayay ka yihiin macnahooda markii aad eegto aad fahmaysaa. marka nambarka 18 daalibatun ardayad waxaa leedahay tilka daalibatun taasi waa ardayad. nambarka 19 jamalun waa rati waxaa leedahay daalika jamalun. nambarka 20 ugu dambeeyo badatun waa booloboolo waxaa leedahay tilka badatun taasi waa booloboolo. alkalimaad ereyada aljadiida ee cusub almumaridatu waa kalkaalisada haddii aad ka rabto lab ahaana kalkaaliya haddii aad dhihi rabto taagaabtaas ka bixinaysaa waxaa leedahay almumaridu kalkaaliya. alxadiiqatu waa beerta albadatu waa booloboolada almuadinu waa muadinka annaaqatu waa hasha albaydatu waa ukunta. asmaau lishaarati lilqariib magacyada tilmaameedka ee loogu talagalay lilqariib qof kuu dhow waa haadaa iyo haadihi hore ayaan soo marnay. haadaa kani muxamedun waa muxamed haadaa waxaa loo isticmaalaa hal shay ama hal qof oo lab ah oo kuu dhow. haadihina waxaa loo isticmaalaa hal shay ama hal qof oo dhadig ah oo kuu dhow. haadihi midda tani aaminatu waa aamino. asmaau lishaara magac tilmaameedka lilbaciidi loogu talagalay waxa kaa fog daalika iyo tilka. daalika waxaa loo isticmaalaa dhahnay hal shay ama hal qof oo kaa fog oo lab ah hal shay ama hal qof oo lab ah oo kaa fog. tilkan waxaa loo isticmaalaa hal shay ama hal qof oo dhadig ah oo kaa fog. daalika kaasi xaamidun waa xaamid tilka taasina zaynabu waa zaynabo. الدرس الثامن عشر كسديدات أيو عشر كنو جوغي دونا عشر كتضبات هلكا أيو كسيمينا وبالله توفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.